بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aabe iyo hooyo ma ogtahay inaa macluumaad khaldan ku tarbiyeenaysid wiilkaaga markaa ku leedahay ha ooyin waayo nin ragi ma ooyo. wiilkaha ilmahaaga markuu kufo intaa gacanta qabatid aa ku dheed iska tir oohinta ma ooyo nin raga ha ooyin. markii wax laga qaato hadaa ku dheedid ha ooyin waayo nin raga ma ooyo waxaa tahay nin raga. ma gabar baa tahay maxaa la ooyeysaa, ma gabar baa tahay maxaa isla jilcinaysaa. ma ogtahay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ooyey. ma ogtahay nabiga calayhi salaatu wasalaam khayru khalqi illaah inuu u ooyey markay dhimatay xaaskiisa khadiija, weliba sanadkay dhimatay loo bixiyay caamul xusin, sanadkii murugada. ma ogtahay wiilkiisa ibraahim, nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa ibraahim markuu dhintay inuu nabiga ooyey calayhi salaatu wasalaam. markaasay weydiiyeen saxaabada oo ku dhaheen yaa rasuul allah ma adiga ooyaya, markaasuu yidhi innahaa dumuucu raxma. anaga maantay waxaa laga yaabaa ninka ilmihiisa dhinto ama xaaskiisa dhimato yani inuusan ku cabiri karin oohin, sababto a markuu yaraa waxaa lagu soo barmaj gareeyey nin ragaa tahay ha ooyin. oohintu waa nimco, waxaa lagu cabiraa farxadda, waxaa lagu cabiraa murugada, waxyaabo badan oo ka inaga mida. يعني si aanu mawduuca tarbiyada caruurta aan uga nahay jaahiliin ayaa waxay keenaysaa in macluumaad khaldan aan ku tarbiyeyno caruurteena markay yaryar yihiin. ilmahaaga marka ku dhahdid nin raga ma ooyo yani wuxuu noqonayaa qof ay naxariista ku yar tahay. hadhow maxaa dhahaynaa raggeena oo dulminayna, waxaa dhahaynaa waa nin Soomaaliyeed, waa saxraawi, wuxuu ku dhashay wadan maaragtay jafaaf ah. dowladda Soomaaliya maaragtay kulligeed aan ahayn jafaaf, laakiin maxaa dhahnaa waa reer guuraa, wuxuu ka hayaa adayga awowka awow ma ahan. haddii ilmahaasi kasoo baxo guris tarbiya saxa looga soo tarbiyeeyo uu loo daayay ilmaha markuu yari oohintiisa waxa ku cabiro. xilli waxaa jirta ilmaha uuna hadli karin laakiin wuxuu u baahan yahay dhan uu ku cabiri karo oohinta. markaas waa la qaadaya, waa la ordaya, waa la aaminsinaya. markuu barto in wax loo sheegana waxaa la dhahayaa ha ooyin nin ragaa tahay. maxaa la ooysaa ma gabar baa tahay. يعني الحمد لله markaas gabdhuhu way iska naxariistooda iska wataan oo caadifadooda way ku dhashaan, laakiin wiilasha toodi maaragtay waxa lagu barmaj gareeyay nin ragaa tahay ha ooyin. laakiin gabdhaha waxa la dhahaa maaragtay iska daa iyagu waa iska ooyaan. marka saas anaga maaragtay ma sha Allah tabarakallah. almuhim ilmaha macluumaad khaldan ha siin, hana ku dhihin nin ragaa tahay ha ooyin waayo oohintu waa nimcooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala bixiye nimco kamida. qofku wuxuu ku cabiraa farxadiisa, يعني dad ba farxad la ooya. nin ba ciyaartooy markuu gool dhaliyo ooya farxad darteed, hadduu muslim uu sujuuday isagoo ooya, haddii kalena uu ooya farxad darteed. wuxuu ku cabirayaa oohintaas farxadiisa. qof ba maaragtay murugo iyo masiibo ku dhacaysa, waxaan hadalka lagu cabiri karin ba waxa lagu cabiraa oohinta. oohintu waxay ka takhfiifinaysaa dhibkii aad dareemaysay. sidaa darteed ilmaheena yaryar yaanaan tarbiyeyn tarbiyad khalaqa yani maaragtay khaldan oo maaragtay macluumaad khaldan yaanaan ku qarsin oo ku barmaj kareen maskaxdiisa, laana maskaxda bini aadamka wixii lagu tarbiyeeyay ay ku dhigto oo lagu celceliyo yani si looga furfuro way adag tahay. qofkan markuu is dhaho cabir murugadaada ooy automatically waxa ku soo dhacaysa nin ragaa tahay ha ooyin. marka yaan laga qaadin wiilasha naxariista maaragtay ha ooyaan, maaragtay farxadda ha ku cabiraan, maaragtay murugadooda oohintooda oo hindee lama rabo ilmo maaragtay yani laga badiyay jiljileec wax kasta uu ooyay. ilmaha oohintaas oo kaleeto maanta insha Allah marba ka soo hadli doona oohinta. ilmaha hadii uu sabab la'aan u ooyay waa la dhageystaa, waa laga fogaadaa meesha jooga. ilmaha markuu korayo maaragtay 3 sano 4 sano meelaha jiro haduu wax kasta u ooyo yani waa la dhageystaa, isaga hadhow iska dhaafaya. wax kastana waa mas'alatul waqt. ilmaha tarbiyadiisu waqti way ku xiran tahay, laakiin tan oo kaleeto hadii lagu barmaj gareeyo ilmaha waxay la soconaysaa madal xayaa. hadhown waxaan maaragtay waxaan wax ka sheegaynaa dhulka quruxda badan oo macaan oo naxariista maaragtay Ilaahay uu abuuray oo maaragtay waxaan dhahaynaa waxaan nahay bii'adu qofka way saamaysaa. bii'ada qofka saamayso lagu sheegay waa bii'ada guriga uu ku korayo, ma ahan bii'ada maaragtay saxraha iyo kaasa. hadii maaragtay qofku bii'adiisa uu incaas gareyn kara, xitaa hadii bii'ada qofku maaragtay wax ku halkiisa uu incaas gareyn kara haduu isaga meel yani naxariis lagu barbaariyay oo maaragtay loo daayay ilmaha koritaankiisa. ilmaha waxaa la dhahaa 7 sano oo hore ilmaha waa la iska dhaafaa, isaga koray wax kasta yani waa dabiici uu koraya. xilliga ilmuhu maaragtay la tarbiyeeyo oo wax loo sheego waa xilliga uu ku jiro maaragtay
todobada maaragtay dhexe waa 7 iyo 7 iyo 7 ilmaha waa laacibhum 7 todobada ugu horeysa ilmaha waa la iska dhaafaa maaragtay todobada ku xigtana maaragtay waa la oo 14 ilmaha intuu ka gaarayo wax baa loo sheegaa tartiib wax loo sheegaa qud waa loo noqdaa maaragtay si layina wax loogu sheegaa wixii ka dameeyana waa saaxiibhum 7 oo waa xilliga uu ilmaha gaarayo maaragtay sinul muraahiqa oo u baahan yahay in lala saaxiibo in maaragtay ilmaha loo dhawaado in jacayl la tuso marka ilmaha macluumaad khaldanyaan lagu tarbiyeen ilmaha la jeclaado ilmaha la habsiiyo ilmaha la dhunkado waa ogahay dad badan oo daawanaya inay dhahayaan maxay ka hadlaysaa laakiin mawduuca tarbiyada waa mawduuca keliya oo baahida keliya aanan ogeyn inay naga maqan tahay laakiin muhiimka ah ilaahay subxaana wa tacaala awlaadaha noo barakeeyo waalidiintana ilaahay ha ku ilhaamiyo in ay bartaan tarbiyadda ilmaha ogaadaana tarbiyadda ilmuhu inaysan ahayn ilmaha bariis la siiyo oo dhar loo xiro oo waxbarasho la geeyo wax ka weyn baa jira oo ah ilmaha in jacayl la siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.